tamarta iyo biyaha, wasiir dowlaha arrimaha gudaha, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, gudoomiyaha xiriirka bariga Afrika, xarunta bariga Afrika, gudoomiyaasha jaamacadda Muqdisho, Hormuud iyo Banaadir, la taliyaha madaxweynaha Dr. Cabdiraxmaan, dhammaan bahda waxbarashada, macallimiinta, professorada, xildhibaanada, saxaafadda, qof kasta mansabka iyo maamuuska uu ku joogo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. marka ugu horeysa farxad bay ii tahay kulankan inaan ka qayb galo, kulan cilmiyeed la isku idaarsanayo dood la xiriirta dowlad dhiska. waxa aad u tiro badan oo qurux badan ayaan filaynaa meeshan in lagu soo bandhigi doono, dood culusna in laga geli doono. xasan kaynaan wuxuu soo jeediyey bandhig, wuxuuna taabtay meel aad muhiim u ah. dowlad dhiskana meesha uu ka fadhiyo in aysan ahayn hal qodob ama laba qodob ama saddex qodob, laakiin ay tahay waxyaabo badan oo isku dhex jira. waxaan rajaynayaa marka dowlad laga hadlayo ama dowladda casriga laga hadlayo oo ah mid anaga naga burburtay, waxaa la tilmaamay inay ka timid gumaysigii. marka si aan u fahamno dowlad dhiska naftiisa waa inaan adduunkii weyna aadno. ilaa dowladda casriga xilli ay soo bilaabatay ayaa jirta. waxaa la tilmaamay intaan dowladda casriga noo imaanin waxaan u samaysnayn qaab qabiil baan u dhisnayn, ama ha ahaadaan meelaha qaarkood oo saltanada ay ka dhisnaayeen, ama ha ahaadaan habka dhaqanka ah oo beelaha salaadiinta iyo imaamyada iyo barada iyo malaaqiyada iyo boqorada iyo ugaasyada qaabka la isu maamulo dhaqanka. dhanka kalena waxaa ka jiray dariiqooyin ama jameecooyin diineed ayaa ka jiray. adduunka weyn marka la aado saas unbuu ahaa. marka la fiiriyo meesha saldhigga waa dowladnimada casriga oo Yurub ah, annaga waxaa laga yaabaa dagaaladeena inaan 40 sano iyo wax la mid ah ka hadlayno, laakiin dagaalo waaweyn ka dhacay Yurub. markaa timaadid dagaal waxaa jiray 100 sano socday, 116 sano socday. wuxuu ku salaysnaa qowmiyado. Ingiriis baa soo duulay, Faransiis baa qabsaday 1937. dagaalkaas wuxuu socday ilaa 1453. wuxuu ka tarjumayay in qaabka la iskugu duulay uu yahay qaab beelaysan oo Ingiriiskii baa wuxuu qabsaday nimankii gaaliga ama Faransiiska ayuu qabsaday. dagaal dheer baa ka dhashay. dagaalkaas marka wuxuu markasta dagaal dhuco heshiisyaal la galayay, waxaana lagu heshiinayay in la xadeeyo dhulalka qaar ka mid ah, la kala qaybsado awoodaha, xuduudaha la kala qaybsado. waxaad imaanaysaa qarnigii 17aad oo imaanaysaa 1618 dagaal 30 sano socday ayaa xilligaas bilowday. wuxuu dhamaaday 1648. boqortooyadii Roman, the Holy Roman Empire, Habsburg, iyo waxaa dagaalamayo dowladihii qaatay Protestantiga oo Sweden ay ugu horeysay. dagaal 30 sano socday oo diimeed ayaa meeshaas ka dhashay. kadib waxaa la gaaray heshiiska aad in badan oo adin ka mid ah ogtihiin oo ah Westphalia, oo ugu xaaray in xuduud kala yeesho, qayb ahaana abuuray in dowladda casriga ah maanta ay timaado. ma Westphalia kusoo bilaabanaya mise 1649 markii Commonwealth of England oo Scotland iyo Ireland iyo Wales iyo Ireland isu tageen ayuu kasoo bilaabanayaa modern state. waa su'aal. mise kacaankii Faransiiska 1789 ilaa 1799 ayuu kasoo bilaabanayaa. su'aalahaas oo dhan waxaan u baahanahay marka diin baa la isu dilay, anaga niman baa hadda diin noo dilaya. qabaa'il baan isu dilnay, qabaa'il baa Yurub isu soo dishay. dowladda casriga timid, waxaad ogtihiin Jarmalka oo ahaa aqalkii falsafadda, Talyaaniga oo ahaa aqalkii ilbaxnimada, Renaissance-ga meesha uu ka soo burqaday. waa meelihii horseedku u ahaa, ama kacaanka Faransiiska oo ilbaxnimadii waa meelihii horseedku u ahaa dowladda casriga inay dhalato. laakiin meelahaas Talyaaniga waxaa ka soo baxay nin Mussolini la yiraahdo, waad ogtihiin wuxuu dhigay. Jarmalkana Hitler baa ka soo baxay. dagaaladii ay qaybta ka ahaayeen oo Yurub ka dhacay 80 milyan oo bani aadam ku dhintay, kii koowaad iyo kii labaad.
dagaalkii u dhaxeeyay Ingiriiska iyo Faransiiska oo qarniga 14aad ahaa iyo 14aad 15aad boqolka sano socday 8 milyan baa ku dhimatay dagaalkii 30 sano socdayna 10 milyan ayaa ku dhimatay annaga marka loo yimaado dowladnimadeena halkaas sabka hoysa Talyaani baa noo yimid Talyaani markuu noo imaanayo 20 sano ma jiro wuxuu ahaa gobol yar oo kala qaybsan 1871 ayay Talyaaniga isu yimaadeen dowlad samaysteen annagana 92 bay noo yimaadeen shirkadii Filiinaadi bilowgeedii hore Zanzibar markii heshiiska la galayso oo dhulkan banaadir xeebaha banaadir ay qaadanayso oo dhulka laga kiraynayo waa 20 sano kadib markii midoobeen dastuurka ayaa noo sameeyay dastuurka ay noo sameynayaan waxaa la develop gareeyay ama la bilaabay qoritaankiisa Mussolini markuu meesha ka baxay 1943 kadib dagaalkii labaad dastuurka ay noo sameeyeen oo ah nidaamkan parliamentarianka oo hadda aan haysano Afrikada kale kama jiro Afrikada kale waa presidential laakiin maadaama Talyaaniga horena uusan u mideysnayn oo degmooyin isu tagay uu ahaa markii dambena Mussolini aad loola diriray oo dadkii la diriray intay yimaadeen ay heshiiyeen ayay waxay ku heshiiyeen nidaam parliamentary in la sameeyo markii noo yimaadeen kii bay noo keeneen cid ka doodayna ma jirto sidii ayaan ku qaadanay hadalka inaan sii dheeray mar raba laakiin waxaan jeclaan lahaa marka la daraasaynayo dowladiska inaan lagu soo koobin dowlad baa noo dhalatay waa burburnay waa isdilnay waa hognay waa baanay aad baan u fiicanahay adduunka waa isa soo dilay waana ka soo baxeen waa ka soo qabsadeen waa isdilnay waa soo qabsanaynaa marka bal dib ha loo fiiriyo adduunka dowladiskiisa qaab meeshii uu soo maray iyo dhibaatooyinkii iyo horjoogsidii ka dhacay maanta waxaan joognaa meel isgoys ah waxaan hor yaallo barnaamijyo waaweyn oo haddii aan ka miro dhalino na gaarsiin kara inaan dowlad macno leh oo aan wada leenahay wada ilaashana aan samaysano dastuurka nala maystira ka mid ah ciidamada ATMIS inay naga baxaan baa ka mid ah deynta inay naga cafiyaa ka mid ah midnimadeena inaan soo ceshanaa ka mid ah chapter 7 ayaan ku jirnaa inaan ka baxnaa ka mid ah waxaan ka hadlayno oo marar qaarkood aad looga hadlo waa structureska ama qaab dhismeedka dowladda laga hadlaa laakiin social fabric iyo dadka waxa isku hayoon loo jeedin aad loogama hadlo waxaan u baahanahay daraasaad xoog leh in laga sameeyo falsafada cilmi nafsiga cilmiga bulshada ama cilmi ijtimaaca si aan u fahmno marka laga hadlayo wixii Yurub ka yimid ma la wada qaadanayo mise lama wada qaadanayo ma waxaan u laabanaynaa asalkii laga yimid mise wixii aan fiican ka qaadanaynaa wax Soomaalida kaliya ku egna ma aha wax Muslimka kaliya ku egna ma aha waxaad garanaysiin post colonial studies ayaa jiro ama diraasaad ma bacda koloniyaaliya waxaa laga hadlayaa see mujtamacaadkii la gumaystay u noolaanayaan oo ay dowladooda u noqonaysaa mid qiyamkooda iyo danahooda ka shaqeysa riwaayado aad u tiro badan baa laga qoray qaarkood waxaa qoray dad muslimiin oo annagoo kale taa طيب صالحaa ka mid ah موسم الهجرة إلى الشمال يحيى حقي ayaa ka mid ah هشام المقنديل توفيق حكيم عصفور من الشرق baa ka mid ah سهيل إدريس الحي اللاتيني Chinua Achebe things fall apart dhammaantood waxay ka hadlayaan maashii isticmaalka uu yimid iyo saameynta uu ku yeeshay bulshooyinkiisa Chinua Achebe silsiladaha uu leeyahay Arrow of God iyo No Longer at Ease Man of the People kulligood waxay taabanayaan saameyntii bani aadamka Afrikaanka markii gumaysiga uu yimid soo saameeyay marka waxaan u baahannahay bal inaan daraasayno adduunka dowladiska soo maray maanta aan joognaa Yurub dagaal baa ka socda waa la isdilayaa aad baa loo baaba'ayaa qaxooti baa Yurub ka socda oo Yurub dhexdeeda ah dowladnimada markii la dhisaayay oo renaissance-ga ay soo baxeen falsafadihii iyo waxaa lagu dhisay modernity ayaa lagu dhisay marxadafa xadaafada solid ay ahayd ama adkeyd laakiin muddo yar kadib isbedelada ku saabsan tiknoolajiyada casriga ah iyo communicationska waxay keeneen qiyam tiro badan inay baaba'aan liquidity waxa kasta dareere noqdeen hadda dowladnimada waa dareere qiyamkii waa dareere wax meeshooda sugan ma leh muqaddaska ahaa waa sii baaba'aya wixii mudlaqa ahaa ama aan dabarka lahaynna dabar ay yeelanayaan ama nisbiya ayaa soo xoogaysanaysa marka waxaan u baahanahay markaan dowladnimadana ka hadlayna waxyaabahaas oo dhan inaan fiirino laakiin haddaan fiirino reer hebel iyo annaga is dhignay annaga yeelnay iyo gumaysiga noolahay kana noolahaa waxaa laga yaabaa inaan meel soke
aan ku koobnaano marka waxaan soo jeedin lahaa bal sawirkaas guud oo comparative-ka ah dowladnimada adduunka meesha soo martay maanta intelligence artificial-ka waad ogtihiin dhibka uu ku hayo dowladnimada waxaad ogtihiin genetic engineering ayaa jira isbeddelka bani aadamka iyo raashinka aan cunayna waxaas oo dhan uu ku hayo caafimaadka dadka climate-ka aad ogtihiin duruufaha waxyaabaha uu abuuray nanotechnology waad ogtihiin taqniinta nano iyo isbeddeladii horumarka waaweyn oo samaynayso waxyaabahaas haddaan la fiirin marka mustaqbalka meeshaan u soconno waa ka haraynaa yurub dowladnimadeedii iyo mustaqbalkeedii bay ka fikiraysaa inay khatar ku jirto xiriirka atlantiga u dhexeeyay maraykanka iyo yurub ayaa sii baaba'aya ruushka ayaa waxaa isku dartay shirkad ay ayaga abuureen Wagner la yiraahdo inay inqilaab ka sameeyaan waxaad ogtihiin Germany baa la isku dayay in la inqilaabo waxaad ogtihiin boqortooyada Ingiriiska cidda ka talinaysa maanta ama Scotland markaad cidda ka talinaysa isbeddeladaas oo dhan haddaanan aanan ku fiirinin markaan dowladnimadana baarin haddaanan qaadanin muraayadaas oo aanan ku fiirinin waxaa laga yaabaa inaan meel soke aan bidhacno noqdo marka waxaan soo jeedinayaa adinkoo mahadsan khubaraad tihiin waxaas oo dhan aqoon aad u leedihiin meelahaas oo dhan inta la taabto taladiina tusaalihiin waa sugeynaa waana idin mahadcelinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu